midaan ii jahal bixina maa fi naftirka leefkeeda daawanayso lambarkay miswaabse usoo raadinayso weeshaan lambarkay inta kama sheegaayo miswaabse luuq walba usoo marayso ee soo heshay iyadana ha isoo raadiso meesha oo banooni lagu dheel garoonkan iskaana keento waana la daawanaa xaafadheed sida ciyaaro oo socda camal adina waa iga daba haraynayaa maafiyo hal iyo taa soo qaadini shantaada ila imaa shanteedan kuula imaanaa haddaana adiga goobashada ka saaya fiiri abay fiiri masraxa miswaal markeedii hore markii yareed dagaal ma loogu duceeyay Nairobi markii joogtay afarta gis maalin walba qof ayay dhunta haysataa hadda Muqdisho joogtaa maraxa Tuushiyare mar balbalaarka mar babajay haddana gawar dhano mafia la dhahayo dadka TikTok gala ay fahmi karaan gawar la dhahayo mafia oo ayadana 24 second wax kala sameyn ilaa dagaal ma ogeen ay faraha la gashatay waxaan waxay isla og yihiin ay leeyihiin maalin walba YouTube-ka ah haysana miyaa mise waxay tahay dagaal run ayay ka tahay maalin walba ayadii gabadhaas war xeer waxaa arkaysaa ayagoo mindi isku daba ordaysa ayaa arkaysaa maalin walba TikTok live iska caynaan haween walba ay soo xaadirinayaan wara iga sheegtay wara iga keentay wara sane gabadha mafia la dhahayo ayada wax kale may kusoo caanbixin waxay kusoo caanbaxday dagaal ma xusta beriga dugsiga laga dhiganayo oo dugsiileyda la ahaa soo ma jirto gabdhaha u dhibka badnaa ama maqlayso weekend walbo dagaal ayay ku jiraan qof ay haystaan gabdhihii hadda weynaadeen oo YouTube bilaabeen shaqadooda ayay wataan dadka isma bedelaan yar leh ma ogiye sababta 24 saacadood dagaal ugu jiri kartaa midda kaleeto Mrs. Wal intay Nairobi ka tagtay Muqdisho aaday gabadhan inta iska arkeen أنا waxaan u maleeyaa maafiyadan si u socoto Mrs. Wal inay wadnaha ku dhufan doonto sababta ah taas adiga wajigeeda inta marka aragto waa ka cabsanaysaa xad ay ku istaagaysaa gabadha TikTok hatta hadday soo gasho caadi dadka qaar way dance gareeyaan qaar canjeeradooda ku dubtaan qaar jecel jilaan laakiin gabadhan 90ga dagaal ay wadaa qof ay ku dhagan tahay hadda Miss World waa Miss World si u socotay xaafada mafia ayay gashay gabadhaas waa gabar Muqdisho marka socoto xaafadooyinka imaanto qof walba uu istaagaya waxa u maleynaysa madax inuu soo gashay cabsi si looga qabo gabadha way ku diiranaysaa ayadan war anagoo maanta ayada u dhaweyn oo shaashad ay ka daawano arkaysa waa cabsi ku galaysa gabadha soo hadlayso wadnaha ku soo istaagaya boqolaalan wallahi ay jaraysa أنا واحد إلى مروا بوالك العليا قفك جيسيا سفاء وغانو والسكوسي دان لها سبتا انت كبضا مالي والبحوين والبتيكتا وي هاستان دادكي نو اسكوسي درايان دادكا نواشر دادكا كومنتي قران قار وحا لا سعدان مسوال قارنا مافيا لا سعدان أنا واحد إلى والسكوسي دايو oo taariikh la qabto oo aragno qofkii afka ka tahay iyo qofkii ruum ka tahay oo gacan isku dagaalay oo gacan qaad sameynay yirka hore saasay tuma laba qof hadii la kari waayo oo dagaal wadaan maxaa lagu sameeyaa wala isku sii daaya ninka adag ayaa la fiiriyaa soma qofka kale marka dambe wasiga iska ciiboobi doona Soomaalideen intaas oo badanahay
laba qof is haysanaysa 24 second ma la isku soo bixiyo si fi dagaalka loo reebo war xeer hataa waxaa gaartay qawiil waxaa arkaysaa tiktok team waxaa loo kala baxay miswaal iyo team mafia dadka u badan mafia jecelin waxaa ku jecel geesinimo ma geesinimo ka tahay animo weyn laakiin waxaa lagu jecel waxaa waa dagaalka oo ogta anaga Soomaalida dhiigeen oo iska kulul yahay wax dagaal hadduu dhaco waan joognaa gabadhaas waxay ku soo baxday adi qof ma aragto ku soo baxay dagaal weligay ma arag sina way kaga qosjinaysaa sina way kaga naxsinaysaa adi maxaa leedahay soo ma fiicnaan labada gabdho in la isku sii daayo qofka midka adaga fiirinayn sababta maalin kasta dadka way dambaajinayaan dhalinyartina commentiga la taagan yihiin isdagaala saan sameeya way isku dirayaan mise dad hala helo intii la wada fadhiisiyo saaxiiba laga dhigo sababta meel xuma isku dhufan karaan qof dhan oo mindi magaalo la dhex maray maxaa waaye ma lagu shalleystaa Mrs. Walne Nairobi soo tuftay hadda Muqdisho joogtaa Nairobi dadka joogaan waa masaakiin ma ku tataawanaan laakiin dadka xagga joogaan ma cabsadaan hadda sheeko keenta YouTube iyo caanaad meeshan ayaa Nairobi ayaa caani waxa la ixtiraama laakiin xagga caanimo wax weyn kama aha ana waxa u maleynaa Mrs. Walne inuu wadnaha lagu dhufan doono sababta qof walbo way soo martay markuu canab ay haysteen mar samiixa ay haysteen mar maarish ay haysteen haddana inta ka baxday Nairobi xagga tagtay gabadha laga cabsado oo faraha laga qaaday war ragga ta cabsanaya waxa arkaysaa xaafidii maraysa arkay video ka daawanay dadkii dhankiisa u baxeen madaxa u maleynaysa soo qofkaas haduu qabto aydan ala shidaya waxaan dagaalkan hadeerun ka tahay ha soo baxaan aragno yaa adag mise waxaan views ay ku raadinayaan oo waxay leeyihiin trendiga ka bixin hal ugu daawada adile magacaada halahayo dad saas ayaa jiraan ana waxay la tahay dadka inay views ku raadsanayaan adigana cunaha ku daalay commentiga sa u soo qoraysay iyo gacmaha ma views ku raadsanayaan oo ma waxay ka tahay caanimo mise real life kooda saanay u dhaqmaan sababta qof dhan suu mindi intuu wata magaalo kula dhex maraya qof hadaad uu ku dhuftana ani haan waxaa u malaa waxa dhan inay views ka tahay kaamirada markii la damiyo ay walaalo yihiin ee dadka ka waalayaan magacooda rabaan le week walba gabdhahan YouTube-ka ayaga haystaan week walba ani waxay la tahay dadka inay content ka tahay oo video YouTube mooyee inay dagaalka ahayn